dowladda Iran waxa ay sheegtay in horumaraan badnayn laga sameeyay wajiga labaad ee wadahadaladii shalay iyaga iyo Mareykanka ku dhex maray magaalada Geneva. wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Islaamiga Abbas Araghchi ayaa warbaahinta u sheegay wadaxaajoodka kadib. البته هنوز دو طرف مواضعی دارن که ugu dambeyn waxaanu u dhowaanay heshiiska gaarista mabaadida hagi doonta nooca isafgarad iyo horay ugu socoshada in qoraal loo bedelo heshiiskeena suurtagalka ah. Talaabo wanaagsan ayaanu horay u qaadnay. dariiq maangal ah ayaynuna haatan haynaa. wuxuu intaas ku daray in Iran weli dhankeeda diyaar u tahay inay iska difaacdo hujuum kasta oo ay la kulanto, isagoo xusay in cawaaqib aan wanaagsanayn laga dhaxli doono isku day walba oo la maago in lagu weeraro xadadka Iran. rajada ay Iran ka muujisay wareegga labaad ee wadahadaladu waxa ay tustay isu soo dhawaansho iyo in labada dalba markan ay ka go'an tahay heshiiska gaarista qadiyadda nukliyeerka, taas oo ah midda kaliya ee Tehran doonayso inay ka gorgortanto. hadalka Abbas Araghchi ayaa sidoo kale loo fasirtay inay markan Iran ay Mareykanka ku qancisay nooca heshiis ee iyadu doonayso in laga wada hadlo, midaas oo sawir kale ka bixinaysa cadaadisyadii tirobeelka ahaa ee Mareykanku dalkan saaray bilihii dhawaa. ha yeeshee iyadoo ay muuqato yididiladan cusub ee laga qabo in wadahadaladu miro dhalaan, docda kale dowladda Iran waxa ay shalay shaacisay inay si ku meel gaar ah u xirtay marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz. inkastoo ay marar badan ku hanjabtay inay xiri doonto gacankan dowladda Iran, haddana tallaabadani waa markii ugu horeysay ee ay shaacisay xiritaanka jidbiyoodkan marinka u ah 20% shidaalka dunida. sababta xiritaanka waxa ay Tehran ku sheegtay in mar kale maalmo gudahood ay dhoolatus military gacanka ka sameynayaan ciidamada badda ee qaybta ka ah ilaalada kacaanka, dhoolatuskaas oo si la mid ah kuwii hore rasaas nool la adeegsanayo. tallaabada naadirka ah ayaa dhalisay su'aalo dhowr ah oo quseeya waxa ay dhab ahaan Iran uga goleedahay xiritaanka marin biyoodka. waxaa la isweydiinayaa haddii xukuumadda Tehran ay tan uga jeedo inay adduunka tusto inay markii ay rabto xiri karto gacanka oo iska daa inay arrimo difaac oo daruuri ah u xirto ay mararka qaar u xanibi karto ujeedooyin iska caadi ah sida dhoolatus ciidan, midaas oo diraysa fariin cad oo qusaysa inay Iran horey ka xiri karto marinka haddii Mareykanku bilaabo dagaal ka dhana dalkan, taas oo si aan xad lahayn u dhaawici doonta dhaqaalaha dunida. waxaa sidoo kale isla goorta amarkani soo baxayba oogsatay cabsi laga qabo in tallaabadan ay uga dari karto xiisadda bariga dhexe ee aan dhammaadkeeda la hubin. bayaan kale oo warbaahintu si weyn u hadalhaysay saacadihii dhawaa ayaa ahaa mid uu soo saaray hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo qoraal koobnaa oo internetka ku baahiyay ku yiri ciidanka ugu xooga badan adduunka laf ahaantiisu marar ayuu la kulmaa dharbaaxo uusan abid ka soo kaban karin, tan oo uu ugu duur xulay hanjabaadaha Mareykanka ee ah waxaanu haysanaa ciidanka dunida ugu xoogan. ayaa lagu micneeyay in Khamenei Washington uga digayo ku dagmidda quwadda Iran oo uu sheegay inay noqon karto dharbaaxadii ay u dhiman lahaayeen.